رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre ayaa ka gidoomay ballanqaadka qorshaha waxqabad ee wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Firdowsa Cismaan Cigaal iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Biixi Iimaan Cige. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay madaxda labada wasaaradood in la xoojiyo wada shaqaynta kala dhaxaysa hay'adaha kale ee dawladda. Isla xisaabtanka iyo daafurnaanta waa muhiim iyada oo loo dejinayo halbeegyo iyo qorshooyin waqtiyeysan oo la hirgelin karo si guulo la taaban karo looga gaaro sanadka cusub. Howlaha muhiimka ah ee horqabadka u leh xukuumadda dan qaran ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday in xafiisku dardar gelin doono hirgelinta hanaanka casriga ah ee lagula soconayo warbixinada iyo waxqabadka wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda. Guddoonka qorshe hawleedka wasaaradda ayaa ku soo beegmay iyada oo xukuumadda dan qaran ay ku guuleysatay halbeegyo waaweyn oo la qabtay boqolkii maalmood ee ugu horreeyay. Waxaana la filayaa in sidan oo kale ay dhammaan wasaaradaha xukuumadda ay u soo gudbiyaan qorshe hawleedka 2023 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa maalmihii dambe si dardar leh ku socda gudbinta qorshe hawleedka wasaaradaha xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayada oo la jaan goynayo barnaamijka xukuumadda ee sanadka 2023 qorshaha qaran iyo aragtida madaxweynaha Soomaaliya.